mid ka mid ah madaariska lagu barto culumta diiniga ah oo ku yaala caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo aanu shalay toolo booqanay ayaa waxa aanu kula kulanay dayac badan oo ka muuqda madaariskaasi iyadoo ardaydu geedka hoostiisa wax ku dhiganayay ayaa macalinka wax u dhiga ardaydaasi waxa uu baaq u diray ummadda muxsiniinta ah sidii ay gacan uga geysan lahaayeen madrasadaasi isla markaana loogu dhisi lahaa meel ka wacan geedka hoostiisa maadaama uu in badan la soo tacaalayay isagoo ardayda tabaruc wax ugu dhigaa isagoo ka hadlaya amuuraha waxa ka mid ah hadaladiisii duruufta waqtiga joogto waad garanaysaan waana dad dan yara waxa weeyaan waa farsamo aan loo mar quraanka kariimka barakadiisa baan ku soconnaa ardayga keenana waa u dhignaa ardaygan keenina waa u dhignaa waxa weeyaan waa quraanka ilaahayo arday maxaad keen weeyday lacag noqon lama oranayo anaysana waa loo dhigaya kii haysana waa loo dhigaa qaada wax 15 kun layna baa laga qaadaa laba doolar oo xiisaha waxaan ku codsan lahaa qodobka koobaad ku codsan lahaa horta ardayda in wax loo qabto aniga tayadu hadda dambaysa taale geed hoostiisa loogu dhigayo in wax loo qabto haddii dawlad noqoto iyo haddii dibad noqoto iyo haddii gacmurta noqoto iyo haddii tijaar noqoto iyo haddii hay'ad noqoto iyo haddii carab sadaqadeed noqoto in geedka hoostiisa ardayda wax ku dhiganaysa wax loo qabto marka koobaad asaan codsan lahaa dad fara badan baa in badan loo yimid TV baa loo yimid dad badan baa loo yimid wariyayaal wax wali waxaasaan qabanaynaa yiraahdo ma hayno wax duuba waanu aragnay wax laakiin waxaasaan qabanaynaa oo dadkaas baan wax u qabanaynaa yiraahdo وموسى حسين حسن وررك SBS Hargeysa